dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay heshiiskii u dhaxeeyay shirkadda DP World iyo maamulka Somaliland ee ay ku heshiiyeen dekedda Berbera. waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo wareysiiyay wargeys ka soo baxa dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Capital uu ku tilmaamay heshiiskan iyo weliba saameynta uu ku yeelan doono gobolka. sidoo kalena safiirka dalka Djibouti u jooga Itoobiya ayaa waxa uu wareysi dheer u siiyay wargeyskan oo uga hadlay saameynta uu ku yeelan doono gobolka heshiiskan isagoona intiisa badan ku macneeyay in uu horay dalka Djibouti ay uga soo aragtay shirkadani waxyaabo u baahan in ay dalka Itoobiya iyo weliba Somaliland ay cimri qaadasho ay u noqoto. waxaana uu sheegay in hayaan ilaa iyo waraaqo ka kooban 400 oo waraaqood kuwaas uu sheegay inay buriyeen. waxaana wargeysku uu horeynta u weydiiyay maxaad ka fikiraysaan iibka dekedda Berbera ee ay ku heshiiyeen Itoobiya iyo weliba Somaliland. safiirka Djibouti u jooga wadanka Itoobiya ayaa yiri Itoobiya waa dal madax banaan oo saxiixi kara heshiis kasta. waxaana ogsoonahay inay tahay wax caadi ah anaga qudheenu anagoo madax banaan waxaan naga yaabiyay waqtigii go'aanka markii aan joojinay xeerkeena. Itoobiya ayaa heshiis la saxiixatay markaas laakiin anagu ma nala murugusanaanayo go'aanka Itoobiya waa mar kale mid sheegaya madax banaanida Itoobiya iyo weliba inay heshiis la geli karto shirkado shisheeye. waxa uu sheegay safiirka Djibouti u jooga wadanka Itoobiya xasan Itoobiya oo ah lamanaha iyaga ugu weyn in ay tahay dalka Itoobiya mana aaminsanin in saameyn weyn uu ku yeelan karo heshiiskani gobolka laakiin waxay ku xiran tahay hadba sida ay u wada xaajoodaan heshiiska saddex geesoodka ah cidda gashay. sida daraadeedna istaraatiijiyad gobol ayaan leenahay kumana niyad jabayno heshiiskani saddex geesoodka ah ayuu yiri safiirka dalka Djibouti u jooga wadanka Itoobiya. dhanka kalena waxaa maqaal dheer oo uu qoray wargeys ka soo baxa dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Addis Ababa Farneejo uu ku tilmaamay inuu ahaa heshiiskii ay wada galeen Itoobiya DP World iyo weliba Somaliland mid dhaawici doona sida uu tilmaamay heshiis hore ay u wada galeen dowladda Soomaaliya iyo weliba dowladda Itoobiya isagoona soo qaatay sawirada ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya ee iska casilay Haile Mariam Desalegn iyo weliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. markii Djibouti ay ceelinaysay shirkadda DP World ayaa waxaa la sheegay in uu joogay dalka Djibouti wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo booqanayay. qoraal isfahan oo ay saxiixdeen sanad ka hor ayaa Itoobiya waxa ay helaysaa 19% dekedda cusub ee ay dhisi doonto shirkadda DP World halka ay Somaliland heli doonto 30%. waxaana inta ugu badan ee soo hari doonto heli doonto shirkadda DP World. sanadkii 2016 ayaa baarlamaanka maamulka Somaliland waxa uu ansixiyay xeerkani cusub ee oggolaanaya in shirkadda DP World lagu wareejiyo dekedda Berbera. waxaa shirkadda DP World ay sheegtay in lagu maalgelin doono qayb cusub oo laga dhisi doono dekedda Berbera ilaa iyo 440 milyan oo dollar. markii ugu horeysayna waxaa la furay dekedda Berbera sanadkii 1968 waxaana la sheegay in wixii xilligaas ka dambeeyay ay muhiim u ahayd dekedda Berbera Itoobiya iyadoo la sheegay in caawimaad ugu ballaaran ee ay qaramada midoobay u gudbiso Itoobiya ay uga soo degi jirtay Berbera iyo sidoo kale wax soo saaro ka soo degi jiray dekedda Berbera oo ahaa dhanka ganacsiga kaasi oo ka geli jiray xuduudda Wajaale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa waxa wargeyska Addis Ababa uu weydiiyay sababta kaliftay in xilligan Itoobiya ay la gasho heshiiska dekedda Berbera DP World iyo Somaliland. waxaan uu ku tilmaamay in danaynta ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay DP World oo daneynaysa in heshiis la gasho ay ku horumarinayso dekedda Berbera Itoobiya. waxaan uu ku tilmaamay danaynta ugu weyn ee ay ka lahayd shirkadda DP World in ay ahayd iyadoo ku xisaabtamaysa populationka dadka ay muhiim u ahayd dekedda Berbera horumarkeeda iyo weli wax soo saarkeeda isla markaasina uu sheegay inay kor u qaadi doonto dhaqaalaha dekedda Berbera. sidoo kalena safiirka dalka Djibouti iyo Itoobiya ayaa waxa uu weydiiyay wargeyska The Capital ma saameyn ayay ku yeelan doontaa heshiiskan ay wada galeen xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo weliba Itoobiya. waxaan uu sheegay safiirka Djibouti u jooga dalka Itoobiya in uusan qiyaasi kareynin xilligan xiriirkoodu sida uu yahay laakiin waxa uu sheegay in Itoobiya ay ka wada hadleen oo kaliya qadiyadan inaysan noqon mid saameyn ku yeelan doonto gobolka.
waxa uu sheegay oo uu yidhi Jabuuti iyo Itoobiya way is yaqaanaan muddo dheer, waqti fiican ayaanu helnay, laakiin arrintani ma dhibi karto cilaaqaadka badan sababtoo ah ma ahan arrin keliya oo xiriir u dhexeeya labada dal ku kooban, waxaana ka wada shaqaynaynaa arrimo badan oo ku saabsan xiriirka gobolka, laakiin hal magac iyo hal heshiis ma aha mid wax u dhameeya qadiyadda gobolka. Itoobiya waa dal madax bannaan oo saxiixi kara heshiis kasta oo ay u aragto in horumarkeeda uu ka shaqayn doono, iyadoo taas raacaysa. Haddana Itoobiya waxaanu aaminsanahay inay tixgelin doonto madax bannaanida Soomaaliya, ayuu yidhi safiirka dalka Jabuuti u jooga dalka Itoobiya oo wareysi siinayay wargeyska The Capital ee kasoo baxa dalka Itoobiya. Dhanka kalena wargeyska Addis Furniture ayaa waxa uu ku tilmaamay heshiiskii Itoobiya ay la gashay Somaliland iyo weliba DP World iyo diidmadii baarlamaanka Soomaaliya ay diideen inuu yahay heshiis dhex galay dhagax iyo meel adag inuu yahay waxa ugu muhiimsan ee go'aamada ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya waxa uu yahay inuu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, laakiin go'aanka xigi doona haddii uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sugayaa waxa uu noqon doono.